الحمد لله إلهي بانكم mahadinaynaa masaajidka inoo idmay inaan fadhiisano masaajidu waa khayru lbiqaac dhulkan aan dul joogno meelaha ugu khayr badan ee ilaahay jalla wacalaa agtiisa laga jecel yahay waa masaajida أحب البلاد إلى الله المساجد وأبغض البلاد إلى الله الأسواق نبي عليه الصلاة والسلام waxau inoo sheegay dhulka meelaha ilaahay ugu jecel yahay waa masaajidiisa meelaha ilaahay ugu neceb yahayna waa aswaaqda weeyaan suuqu waa meesha tijaaradda adduunyadu ay ka hirgasho masaajiduna waa meesha ay ka hirgasho tijaaradda aakhiradu tujaaru dunya aswaaqda ayaa laga helaa tujaaru aakhirana meesha mar walba laga helo waa masaajida weeyaan Sufyaan ath-Thawri raxmatullaahi calayhi ayaa oran jiray almu'minu fi lmasjidi kasamaki fi lmaa qofka mu'minka masaajidka dhexdiisa marka uu joogo wuxuu la mid yahay sida kalluun biyo ku dhex jiro oo kale kalluunka noloshiisa oo dhan waxa lagu xidhay waa biyaha haddii biyaha uu ka dhex baxana isaga dhibaatoon oo dhimanaya muuminkana meesha uu ku noolaadaa waa masaajid meesha qalbigiisu ku xasilaa waa masjid meesha uu diintiisa ka bartaa waa masaajidka meesha muuminku ilaahay kaga xidhmaa waa masaajidka noloshiisa muuminku meesha uu ku toosiyaa waa masaajidka meeshuu ilaahay kaga xidhmaana waa masjid muslim baan ahay masaajidkana kuma xidhni waxay ka dhigan tahay ilaahay cilaaqa lama lihi bay ka dhigan tahay ibnu cabbaas radia allaahu canhuma ayaa la weydiiyo lagu yidhi ninka salaada jumcadana aan soo xaadiraynin salaada jamacana aan ka soo qayb galayn maxaa odhan lahayd markaasuu yidhi huwa fi nnaar hadduu sidaa ku dhinto naar buu ku dhex jiraa buuhi naar ninka salaada jumcana aan soo xaadirayn shanta waqtina jamaca aanan laga helaynin ee jamaca aan ku xidhnayn jamaca muslimiinta hadduu sidaa ku dhinto naar buu ku jiraa buuhi marka muuminku meesha uu kaga xidhmaa rabbigii waa masaajidka meesha uu akhlaaqda wanaagsan uu ka kasbadaa waa masaajidka meesha uu shareecadda islaamka iyo diintiisa uu ka bartaa waa masaajidka meesha qofka dadnimadiisu ay ku hagaagtaa waa masaajidka marka noloshiisoo dhan baa masjidka ku xidhan qofka muuminka sida ilaahiisa ugu xidhmaayo masjidku ka baran siduu labada waalid u raali gelinaya masjidku ka baran sida uu ganacsiga u hirgelinayo ganacsigiisa masjidku ka baran sida uu jaarkiisa ula dhaqmayo cilmiga masjidku ka qaadan sida uu ganacsanayana cilmigeeda masjidku ka qaadan hadduu ummad maamulayana xabka u maamulayo cilmigeeda masjidku ka qaadan muuminku masaajidka markuu dhex joogo baa la yidhi waa sida kalluun biyo ku jiro oo kale والمنافق في المسجد كالطير في القفص qofka munaafiqa masjidka dhexdeeda markuu joogana wuxuu la mid yahay shimbir banaanka uu iska duulayo iska xayaadaya laga soo qabtay oo qafas lagu dhex riday meeshiisii maaha laana shimbirku daa'iman meesha loogu talagalay waa hawada yatiir fi lhawaa qafas marka lagu ridana waa cidhiidhi buu dareemayaa munaafiqu masjidka marka uu soo galana wuxuu la mid yahay sida maaragtaan shimbir qafas lagu dhex riday buu la mid yahay masaajidu marka waa meesha ilaahay arlada ugu jecel yahay malaa'igtu xataa markay imanayso masaajiday ka bilaabaan safarkooda masaajidka qofka ku xidhan ee ku taxan wuxuu noqdaa jaliisul malaa'ika
qof mar walba malaa'igta la fadhiyo buu noqonayaa laana majliskan imika aan fadhina waxa uu nabigu noo sheegay malaa'igtu inay la fadhiisanayso inna lillahi sayyara ba nabigu inna lillahi malaa'ikatan sayyara ilaahay waxa uu leeyahay malaa'ig arlada dusheeda ayay socdaan yaltimisuuna majaalis adh-dhikri majaalista ilaahay lagu xusay ayay raadiyaan malaa'igta kamida markuu arko wuxuu leeyahay halummu ila haajaatikum malaa'igtii kale ayuu ku leeyahay muraadkada arlada u timaadeen aad kala haydeen aniga arko la kulme kaalaya buu leeyahay dana malaa'igtu markaas garbahooga ayay saaraan ba nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaa samada adduunyada ayay buuxinayaan majliska markay ka noqdaan ilaahay jalla wa ala dhinaciisa u noqdaan ilaahay ku odhanaya maanta maxaad la kulanteen oo maxaad ku urursanaydeen waxay odhanayaan addoommahaaga kamida ayaan la kulannay adigay ku weynaynayeen adigay ku ammaanayeen adigay ku nasahayeen adigay kugu mahadinayeen markaasuu ilaahay may arkeen aniga kumay arkin hadday arki lahaayeen bal ka warrama baa ilaahay yidhaahdaa markaasuu leeyahay malagii hadday kuwaa ku arki lahaayeen ayakoo adiga aanan ku arkin bayba ku ammaanayeen oo kugu mahadinayeen oo ku weynaynayeen hadday adiga ku arki lahaayeen sida hadda ay ku ammaanayeen ee ku xusayeen si ka sii ziyaadsan bay ku hadalhayn lahaayeen markaasuu ilaahay yidhaahdaa maxay weydiisanayaan bal ii sheega markaasuu yidhaahdaa malagii jannaday ku weydiisanayaan oo jannadeeda may arkin hadday jannada arki lahaayeen bal ka warrama siday hadda jannada ku weydiisanayaan si ka daran ayay jannada ku weydiisan lahaayeen markaasaa ilaahay yidhaahdaa maxay iga magan gelayeen naarta oo naartayda may arkeen maya hadday arki lahaayeen bal ka warrama hadday arki lahaayeen sida hadda ay naarta kaaga magan galayaan si ka sii daran bay kaaga sii magan geli lahaayeen marka u dambaysa ilaahay malaa'igta wuxuu ku yidhaahdaa fawshidukum yaa malaa'ikatii annii qad ghafartu lahum malaa'igteediiye marag waxaad iga noqotaan addoommahayga halkaa fadhiya aniga dartay u fadhiyey inaan dembigoodii dhaafay buu ilaahay yidhaahdaa malag baa hadluu yidhaahdaa fiihim fulaan addoon hebel la yidhaahbaa majliska ku dhex jiray isagu muraadkiisu ma ahayn inuu xuskaaga dhegaysto inuu ammaantaada umuu fadhiisane laakiin muraad kaluu meesha ka lahaa markaasaa ilaahay odhanaya humul qowm laa yashqaa bihim jaliisuhum kuwaas waa qoom kala fadhiistaana ma hooge isagana dembigiisa dhaafa baa ilaahay ku yidhaahdaa majaalistan ilaahay aan ku ammaanayno ee diinteenna macaan aan isku baraarujinayno ama qur'aan aan ku akhrisanayno ama xalaqaat alcilmi masaajideen aan kaga qayb galayno ama keligaa intood masjidka aad fadhiisata aad ku dikrinaysid aad wakhtigaaga adduunyada intood ka soo goysid aad masaajidka ilaahay ku camiraysid dembi dhaaf baad ka helaysaa qalbiga ayaa kuugu xasilaya malaa'igta ayaa kuugu ducaynaysa ilaahay baad ugu dhowaanaysaa walbahaarkii adduunyada ayaa kaaga baaba'aya masaajidka huwa aladii anzala asakiinata fii quluubi almu'miniin liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim sakiina qalbigeenna ku soo degaysa sakiinadu waa maxay iimaankii aad lahayd baa iimaan kuugu siyaadayaa oqoontii aad lahayd bay oqooni kuugu biiraysaa cilmigii aad lahayd baa cilmi lagugu darayaa qurbi min allaahi hadba intaad ilaahay aad u dhowaan jirta in ka badan ayaad ilaahay u sii dhowaanaysaa markaad masjidka ku nagaato marka masaajidka hadduu qofku xaggiisa u bato jaliisulmalaa'ika ayuu noqonayaa qofku hadduu xagga suuqa u batana jaliisu shaytaan buu noqonayaa shayaadiintu la fadhiisanayaa halka masaajidana malaa'igtu ay imanaysa baa la yidhi aswaaqdana shaydaan ayaa calankiisa ka taagto junuudiisa ka kala dira marka qofka suuqa u bata dabeecadaha abaaliista dabeecadaha shaydaanka ayuu yeeshaa shaydaanka dabeecadiisu waa maxay alcisyaan waalkibr waalxasad waalbugd nacam waalkufr waalciyaadu billaah sifaadkaa xunxun ee damiimada ee qofka lagu arkana ilaahay uu ka dheeraanayo ayaa qofka ku beeranta hadduu qofku majaalista suuqa u bato lidaalika nabigeenu sal alla alay wasalam saxaabadiisa uu ka ilaalin jiray suuqa inay fadhiistaan iyaakum waljuluusa fi turuqaat yakoo suuqa fadhiyu maalin arkayo wuxuu ku yidhi jidadka aad fadhiisanaysaan baan iniiga digayaa buu rasuulku yidhi maa lanaa min majaalisina buddun nataxadau fiiha bay idhahdeen meel kaloon ku sheekaysanno ma haysan nebi allow sheekadoodu maxay hayd bay kula tahay diinun bay ka sheekaysanayeen jaahiliyaddii noloshay ku jireen iyo islaamka macaankayga isbarbardhigayeen diinta nebi maxamed ku soo degtay bay mar walba majaalista suuqooga isku barayeen
markaa buu nebigu yidhi haddii dariiqa fadhigiisa aad ka maarmi weydaan oo meel badiilood fadhiisataan oo meeshaa meel ka duwan aanad haysan waa hagaaga dariiqa xaqiisa siiya buu rasuulku yidhi sal alla alay wasalam oo xaqa dariiqu nagu leeyahay waa maxay waxa uu nebigu yidhi qaddu lbasar indhihiinna laaba buu nebigu kafu ladaa dadka dariiqa marayana dhibtiinna ka laabtoo ka haysta buu nebigu yidhi raddu salaam dadka dariiqa maraya markayna salaamaana salaanta u celiya buu yidhi amru bilmacruuf dadka dariiqa maraya buu nebigu yidhi wanaagga iyo khayrka faro khayrka u sheega nahya can ilmunkar dadka dariiqa maraya munkar sharciga wax inkirsan wax sharciga islaamku inkiray dadka ay noloshooda ka muuqato munkarka ka reeba buu rasuulku yidhi shantaa khasladood qofku hadduu leeyahay dariiqa uu fadhiisan karaa shantaa sifa hadduu qofku uusan la iman karayn dariiqa wuxuu ka qaadayaa dembi unbuu ka qaadayaa ugu inuu qofku indhihiisa ilaaliyo uu gacantiisa ka ilaaliyo muslimiinta dhibtooda salaan haddii la salaamana salaanta inuu celiyo dadka wanaagga inuu faro xumahana uu ka reebo allah ina siiya sifaadkaas diintan islaamku waa diin ballaadhan dariiqa xaqiisii bay kuu qeexday kuu sheegtay min xaqi ilaahay kugu lahaana way kuu caddaysay ilaa dariiqa dadka muslimiintu ka dhaxeeyay ay marayaan xuquuqda uu leeyahayna diinta islaamku way kuu sheegtay marka kolay dadkeennan waxaan u badanahay dadka suuqa ka bayac mushtariinaya soo maaha bayac mushtarkiina allah inii barakeeyo amii dhahda laanna tijaaradda wanaagsan ee xalaasha waa cibaado bay culummadu yidhahdaan waa cibaado oo nebigu sal alla alay wasalam waa kii lahaa dirhamka aad ilaahay diinkiisa aad ku bixisay iyo dirhamka addoon aad ku xoraysay iyo dirhamka miskiin aad siisay iyo dirhamka reerkaaga masaariif aad uga dhigtay iyo biilkoodii aad uga dhigtay ilaahay agtiisa waxaa ajar badan oo khayr badan buu nebigu yidhi ka aad reerkaaga ku bixinaysay waa markuu xalaal yahay weeyaan xaaraan hadduu noqdo may bishardi waa inuu ahaada xalaal kasbiga xalaashaana bay culimmadu yidhahdaan waa cibaado saddex khasladood hadduu kasbigaasi uu leeyahay cibaado noqon hadduusan lahayn cibaado noqon maayo marka u horeysa kasbigaasi waa inuu ahaadaa xalaal piira waa inuu ahaadaa marka saddexaadna kasbigaa dhexdiisa wax macsiya waa inaan lagu samaynin oo macsiyo laga ilaaliya oo ilaahay daacaddiisu ay kugu dhaafin salaadu iyayna kugu dhaafin kasbigaa dhexdeeda wax qafladoo diin la'aan ayaanan lagu arkin waa maqaaxiyaha aad arkaysaa subaxdiina qur-aan bay ku daaraan iyo ku furaan waaga marka dadku indhaha kala qaadaan hees qaaciya bay ku tuuraan idaan maalin ku weecanoo nidhi wanio cajaladdan qur'aanka ama wacdigan culummada aad subaxdii aad daaraysiduu maad ku daysidaa wuxuu idhi dadka ii soo gelayn buu idhi haddaan taa ku daayo laa ilaaha ila allah oo haddaa subaxdii maxaad u daartaa wuxuu idhi waa barako buu idhi waa barako barakaan ka raadinayaa buu idhi nin waxaan xasuustaa beri magaazaan siduu u dhan yahay khamri lagu wada iibinayo oo nimanka iibinayana carab ay yihiin carab muslimiina yaa la yidhi nimankaas waa carab ee bal ininkaas dadka ziyaartay u tago ziyaarta markaasaan ziyaaranayo waxaa meeshaan dhex joogana waa wada khamri shakalkayagii markuu arkay buu ninkii nala yaabo wuxuu yidhi ma qolo mutawiciinoo maskiid ka timi haddaad tihiin haa lacag buu soo saaru yidhi waa kana lacagtan iga qaata markaasaan ku yidhi anagu lacagta ma qaadano hee dadka awqaadoodaan wakhti ka qaadanaa ee in yar wakhtina siyaan kula hadalno intaan la hadlaayay baan u fiirsado makhalkan uu lacagta ku urursanayo waxaa ku dul qoran aayatal kursigii baa ku dul qoran lacagtuu ku ridayna halkuu ka keenay waa lacagtii khamriga markaan la hadleen in yar u xadiisay baan ku yidhi cilaaqadda ka dhaxaysa aayatal kursi iyo meeshaadan maxay tahay baan ku yidhi markaasuu yidhi waddankan tuugta ayaa ku badan niman baa kuu soo galayo xabad
rasaasay madaxa kaaga dhifanayaan waxa meesha yalla way qaadanayaan marka aayatul kursina wuxuu leeyahay hooyadii baa ii sheegtay igu tiri aayadaas waa xifaado weeyaan waxa leeyahay wixii lagu akhriyay iyo meesha lagu akhriyay ilaahay waa ilaaliyay saasaan ku ogaaday guri aayadani marka way ilaalinaysaa lacagtaydi guri marka kasbigu waa inuu noqdo xalaal marka horeysa marka labaadna bay culimadu leeyihiin kasbiga dhexdiisa waa inaan wax macsiya lagu dhex sameeyo marka saddexaadna yaqiintaadu inay kasbigan ahaan yaqiintaadu waa inay ahaato waxan waa asbaab dukaankani waa asbaab beertani waa sabab tijaaradani waa sabab tacliintu waa sabab aqalkani waa sabab hoteelkani waa sabab laakiin arsaaqada ilaahay baa haya أسباب ويان أرزاق الله صودح مرينا لكن رزاق هو إلهي مثال يربان نسو قادن مساجد نواد ركتين وبانبادن قصبادن مركي لفربيا كصودع نرر بادية آيات مقالة دي صوق قلايو دادك الريمي قلنا دادك وادادك مركي وليب الروابكو أيريهين علاش أما الدحاها بيها لي حولها كو أروريا و10 كيلومتر دور 10 كيلومتر bareerka la sii wada iyo geela iyo xoolaha waa la aroorinaya intaan la xoolaha intaan la kaxayna waxa la sii diraa ceelalyo marka ninkii magaaladu yimid oo qasabadii buu arkay kolka sidan loo wareejiyay biyo ay ka soo daadanayaan markaas uu waa warana ku magaalo miigan ka imanay haraad baa loogu dhintay dadkii reer magaalkuna birtan u biyo ka helayaan Allahu akbar markaasuu wareystuu yiri birtan halkee lagu gadaa ay sheegay hal dukaankana lagu gadaa imisa la siiyaa $5 waba birta qasabada masaajidka ku taale marka la furo biyaha soo deynaysan ku weydiiyay waatan buu yiri waa $5 waa badwi iska qaato wadankiisii buu la tagay dadkii oo arooraya buu ku yiri war joogsada wad war laadihiin magaaladu way ilbaxnimo waxa la gaaray birtaas biyo laga keenay birtii baan soo iibiyo tolkayow biyo ma ka soo dhacayaan ka soo dhicmayaan yani waa midaal wuxuu ku soo noqday ninkii wuxuu roodi dhacday buu saad ugu dhacday aanu ta masaajidka aan ku arkay biyaha soo deynaysaan ka iro tan adiga iibsay bila biyaha markaas lagu yiri war qasabadan aad arkaysid barakad baa ka horeysa barakada qasabad kala biyaha ku shubaysa qasabado iyo beebab baa dhulka dhexdeeda marsan biyaha waxa laga keenay ceelal riig lagu qodo 200 mitir baa biyaha loogu tagay hadar wax sahal ma aha lagu dhibiyay lagu keenay مثالkaas dadku maanta la mid yihiin niga qasabada biyuhu ka soo baxayaan biyuhu halka inay ku jiraan buu mooday uu ku dhagay bal meesha biyuhu way ka soo dhex baxayaan dukaankaaga aqalkaada tijaaradaada beertaada ziraacadaada xoolahaaga xafiiskaaga wa asbaab ilaahay baa soo dhex marinaya arsaaqada laakiin razaaq waa kuma razaaq waa ilaahay رزاق وإله لذلك قفك مؤمنك أسبابتن الله إيمانا إنه يقين صدى الله دون مايو أسبابتن وحا الله باهن يا إن هذا أسبابهان ولا تمادد لكن أرزاق قد إلهي بإنه بلان قادر وأفر بل يلباتن هاي بين علمه علوشه يمركو كجري أفرتي الرمودة ملك قريب كمتهي بكتب نعم بكتب رزقه وأجله أو شقي أو سعيد وكي حديث صحيح النبي شيغي أفر با علمها مركو بقولي لباتنها بين أوركو وكجرو أفرتن كهرب النبي يقول وان نطفض وبيير أفرتن كدنبنا وحا النبي يقول وحنجري روديغا أفرتن كصدحاده دنبنا ووصلدي روهيلبا بقولي لباتن كها بين علوشو علمه مركو كجرو أيا ملك الروح الله سو ديباي وافوفا دنا ملكاسي أفر شيء بو قريا النبي يقول وحا يداد اللهم أدونك علمها علوشا قال ملبا مددق habeenkaas la qori midka uu noqonayo maqani baa mise waa faqiir arsaaqadiisa habeenkaas la qori ma ahlan naar baa mise waa ahl jannana habeenkaas la qori buu nabigu yiri malaba mise waa dhidi ajashiisi baa la qoray arsaaqadiisi baa la qoray shaqi iyo saciid ahl janna ahl naar midku yahay habeenkaas la qori halka qabrigiisu noqonayna habeenka bal calaamadeyn taariikhdu dhimanayo
marka waxaan adduunka dul yaalla waa asbaab daawadaad cunaysid waa sabab lama inkirayo dukaankaad ka shaqaynaysid furatay waa sabab lama inkirayo beer haddaad falatay waa sabab laakiin waa inaad ogaataa almusabbib waa ilaahay jalla wacala marka yaqiin baa loo baahan yahay dadku inay ku noolaadaan yaqiin naciish calaa yaqiinin bay culimmadu leeyihiin marka kasbiga xalaasha hadduunan ku dhicin dariiqadii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam dembi baa ka dhalanaya isagana waxaa ka mida uu nebigu sheegay xadiis saxiixa waa kii nebigu lahaa saddex ilaahay qiyaamaha la hadli maayo dembina ka qaadi maayo il naxariislana ku dayi maayo cadaab kulul oo daranna way leeyihiin buu nebigu saxaabadu markay sidaa u maqleen hadalkaas saddex jeer buu nebigu ku celiyey saddex ilaahay qiyaamaha dembigooga dhaafi maayo il naxariisla ku eegi maayo walaa yanduru ilayhim eegi maayo xaggooda weeyaan laana cidda ilaahay daymooday baa la yidhi ilaahay waa u naxariistay ka dhigan tahay lana hadli maayo ilaahay jalla wacala cadaab kulul oo daranna way leeyihiin saddex jeer markuu intaa nebigu ku celiyey ayuu yidhi abaadar baa yidhi khaabuu wa khasiruu man hum yaa rasuula allah kuwaasi way khasaareen wayna hoogeen ayay yihiin nebi alla noo sheegay markaa buu nebigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi almusbilu waa ninka maradiisa quraanta dhaafiya buu nebigu yidhi kibir iyo khuyala buu u dhaafiya xarago iyo isla weyni ama surwaal ha noqoto ama qamiis ha noqoto ama macawis ha noqoto ama jubbad ha noqoto qofka maradiisa quraanta dhaafiya waa ahla naar walciyaadu billaah walmannaan buu nebigu yidhi ka dadka u gallad sheegta ee dadka ku yidhahda anigaa wax kaa dhigay anigaa halkaa ku gaadhsiiyey anigaa maaragtaanay bani aadan kaa dhigay anu haddaan jirin adigu ma jirteen dadkana anaa kugu daray abaalkayga maad ilowday mannaan gallad sheegte mu'minku ma gallad sheegto mu'minka waxaa lagu yaqaanaa laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura marka uu wax la baxaayo markuu ummad wax baraayo markuu khayr ummad u samaynayo markuu ixsaan samaynayo waxa uu leeyahay anu ilaahay ma ayna adiga waxba kaama barababa ilaahay dartii baan wax kugu qaban lan ilaahay baan wax ka sugayaa ya wal munfiqu sil'atahu bil halaf al kadhib ba nabigu ninka badaacadiisa ku iibiya dhaar beena badaacadu iibinayay buu ku iibinayaa dhaar beena xaq dhaarta ku kalifay si qofkan jeebkiisa lacagta ku jirto uu ula baxa buu leeyahay anigu $5 baan ku iibsaday $1 baan dul dhigtay intuu waliba u dhaarto maxaa been kugu kalifay aba waxaagii tijaaradu waa xalaal maxaad been ugu tijaaradaadii aad been ugu badili dhaar beena maxaad ugu iibin waa in runta u sheegtaa qofka intaa baan siinayaa intaa wixii ka hooseeyana kama ma dhimi karo marka taajirka waa inuu ahaado taajiru saduuq al-amiin yuxsharu yawma al-qiyaamati maca an-nabiyyiin ba nabigu yidhi xadiis kale ninka taajirka ee tijaaradiisa labadaas sifa ku iibinaya labadeen as-sidq wal-amaana waa run wixiisu waa run been ma sheegayo wuxuu iibinaya run buu ku iibinaya waxuu qaadanaya run buu ku qaadanaya amaanana uu leeyahay dadka agtiisa ay ku isla ganacsanayaan hadday amaano u dhiibtaan amaanadii way ugu imanayaan labadaas sifa ninka taajirku wuxuu ku noqonayaa ma taqaanaa maalinka qiyaamaha wuxuu la soo baxayaa sidiiqiintu la soo baxayaa sidiiqiin nebiyadu la soo bixi oo sidiiqiintu la soo bixi oo saxaabada rasuulka radiyallahu canhum raggii jannada loogu bishaareeyey ragga ugu qiimo badnaa iyo ugu waaweynaa tujaar bay haayeen cusmaan bin cafaan taajir buu ahaa abi bakr sidiiq taajir buu ahaa cabdiraxmaan bin cawf taajir buu ahaa sacd ibn abi waqaas taajir buu ahaa zubayr bin cawaam taajir buu ahaa tujaar bay haayeen tobanka jannada loo bishaareeyeyba waxay culimmadu yidhaahdeen nin ahla sufaa kuma jirin tobankuba wujahaa u naas bay haayeen ahla sufuhana waad garanaysaanoo waa raggii nebiga calayhi salaatu wasalaam masaajidka nebiga xagga dambe ka deganaayeen oo abaa hurayra ayaa ka mid ahaa raggaas
waa la yaqaan ragaas laakiin tobanka jannada loo bishaareeyay rag wada sharaf labay haayeen oo dadka rag ugu cadcad ee wadanka iyo ummadda laga dhax yaqaan bay haayeen Abi Bakr Siddiq wa kamid radiyallahu anhu maalintuu islaamay lix dukaan magaalada Makka uu ku lahaa maalintuu nabiga la hijroonayayna awrku nabigu fuulayay maalinta Abu Bakr isaga keenay walaakiin nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam wuxuu ku yiri bithamanaha ya Abu Bakr anu awrkaadii keentay lacagtiisa kharashkiisa aniga la baxay buu rasuulku ku yiri limaada bil mali wal nafs nabigu mali nafbu ku socdaa maalkiisu ku fidinaya diinta waqtigiisu diinta ilaahay ku fidinaya dadna nabi Muhammad waa ka Abu Bakr safarka la rafiiqay ila al-ghar safar al-hijra waa macruuf taariikhdiisu marna nabigu ka horeeya marna nabigu ka dambeeya marka Abu nabigu ku yiri Abu Bakr mar waad iga horeynaysaa mar waad iga dambeynaysaa maxay ku dhacday xagga hore markaan kaaga baqana waa ku hormaraayo waxaan ilaahdaa cadowga nabiga intuu waxyeelin adiga waxa lagu yeelay xagga dambe markaan kaaga cabsadana waan ka dambeeyaa buu kaygu maalintii nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam godka la geliyayna Abi Bakr Siddiq taajir buu ahaa isagoo khaliifa oo taladii ummadda oo dhan loo dhiibo gacanta laga saarayna wuxuu ahaa ninkii dharkiisa intuu qaada bagaashka tagay bacadlaha tagay dharkiisa ku iibinayay oo Umar ibn Khattab gacanta intuu soo qabtay uu ku yiri xageed u socotaa deewaan shaqo tagaya reerkii ubadka ma shaqo tagay buu ka yiri ganacsi dambe haleeli masjid buu ka yiri taladii ummadda lagu dhibay adiga oo reerkayga masaariiftoodiina annaka bixinayno u suureynayna adu halka fadhi baa lagu yiri taladii ummadda loo dhiibay maskaxdiisa kuma soo dhicin mas'uuliyadda lagu dhiibay baad reerkaaga iyo ubadkaaga ku nooleyn doontaa maskaxdiisa kuma soo dhicin waxa maskaxdiisa ku jirta reerkaagana adaa ka mas'uula tanaad ummadda u qabatayna waa mas'uuliyad ummadda u khadmeynaysa halkeen kala joognaa waa kaas Usman ibn Affan kadalika qani buha Usman qani غزوة تبوك markuu nabigu baxayay wuxuu ahaa ninkii 700 oo awr iyo 500 oo faras nabiga hortiisa keenay buu ahaa ayri inta ciidanka igu dar 700 oo awr iyo 500 oo faras inta bixin kana buu ku jira wadankeena asxaabu rasuul marka laga warramay waxaan u haysanaa dad fuqara iyo dhulka yaalaynay ahaayeen 10,000 oo nin sahiidoodii buu maalinta nabiga u keenay uu 10 kun ana ka qaaday igu daa gaadiidkay raacayeen uu keenay baadkay cunayeen sahay ka dhiganayeen uu keenay marka uu nabigu gacmaha cirka u taaguuri ya rab Usman ibn Affan raalli baan ka hay adiguna raalli ka noqon ni'mal malu salih lirajul salih nagamaanta xoolaheena baanankay noo yaalaan aqaladay noo yaalaan ciiday noogu jiraan oo qalaan ku dhisana iyagoo xoolahooga iyo dhaqaalahooga diinta Ilaahay bay ku bixinayeen 700 oo faras oo awr iyo 500 oo faras iyo zaadkay 10,000 oo nin ay cunayeen sahay ka dhiganayeen ilaa Tabuuka ay tagayaan ka soo noqonayaana aniga hal igu duceeyo buu فقراء ما هي نقعان كاسة هدنا هبينك لابا ركعدود او كليو قرآن كدما كدميني هدنا نكاس مقام إبراهيم بو هبين لبدا لو والله قال عثمان بعد صلاة العشاء مقام كان النبي إبراهيم وهل كرات كوكو يالو ويان إمك واكو كسمي وقبض دير الذهب كان يا دلاشة ايش هذا لقى داود halka banaanka iska haydo labada lugood bal la dul dhigi jiro marka maqaam Ibrahim halka Abu Usman habeenkii nin saxaabada kamid uu ku yiri iga yar baxaniguna ku cibaadaystay markaas uu uga baxay markuu arkay amirku dul jooga buu uga dhaqaaqay markaas uu labadiisii lugood halka galiyay laba rakac ku tukaday rakacadii koobaad quraanku ku dhameeyay rakacadii labaadna qul wallahu ku tukaday aadaankii fajrkiina wallahu adimay adduunyadana tujaar bay haayeen xoolaha inta leeg bay diinta ku bixinayeen
aakhirada markay noqoto iyo cibaado markay noqotona quraanka dhan rakcad buu ku khatimayay nimankii buqaada ahaa markii Usmaan ay rabeen inay dilaan fadaa'ilka uu sheegtay bay kamid ahayd arrinkaas warmaanaadii dilaysaan buu ku yiri nimankii buqaada ahaa ee Masar iyo Basra iyo iska soo urursaday ee doonaya Usmaan inay qudha kaga jaraan runtii wayna dileen markii dambe wuxuu warmaanaadii dilaysaan miyaanadii ogeyn buu laba gabdhood oo nabi uu dhalay in aniga la ii dhisay oo tani markay iga dhimatay tii labaad uu nabigu ii dhisay tii labaad markay iga dhimatay uu nabigu yiri ina saddexaad oo ina Muhammad haday noolaan lahayd Usmaanow waan ku guurin lahaa buu nabigu kaleey salaatu wasalaam awwaliin iyo aakhiriin waa ninka kaliya laba gabdhood oo nabi uu dhalay ay xaasul noqdeen baa leeyahay taariikhda nin kale oo galay ma jiro caalamka ugu kaligii buu taariikhda ku jira Usmaan ninkaas aan ahay wadi aniga maxay iga dilaysaa warmiyaan adii garanayn buu waxaan ahay mujahhiz jaysh al-usra ciidankii cuslaa ee nabi maxamed uu hor socday 30 kun ahaa ninkii sahaydooda diyaariyay ciidanka xambaaray ee gaadiidkay raacayeen iyo sahayday ku baxayeen keenay baan imaad garanayn buu ku yiri waraniga miyaan adii garanayn buu ninkii bi'r mauna maalintii ansaar muhaajiriintu nabiga u yimaadeen ay yiraahdeen magaalada Madiina biyaheega waa la iibiyaa anaguna lacagan biyaha ku gadana ma haysano waxaan ahay ninkii nabi maxamed ku yiri ceelka bi'r ruuma aniga keenaye nabi allah ceel jannada ku yaal hal igu ballan qaado ee ceelka ninkii lahaa intuu u tagay 30 kun diinaar intuu siiyay furaha ka soo qaaday nabiga u keenay ku yiri yaa rasuulullah ceelkaasi waa waqaf muslimiinta hadhaasna biisa kuwaas oo nabi maxamed uu yiri Usmaan ilaahay wuxuu ku diyaariyay ceel jannada ku taala ilaahay ku ballan qaado nabigu ku yiri yaa Usmaan baa nabigu ku yiri maalinka amal dambe oo wanaagsan oo saalix ah hadaanad qaban oo inta aad ku joojisid adigu inta ma janna ku gashay buu khalaas ninkaas aan ahay war waxaan ahay ninkii nabi maxamed uu yiri miyaanan ka xishoonayn ninkii ay malaa'iktu ka xishooto weeyana Usmaan nabiga kaleey salaatu wasalaam oo jilibkiisaasi uu muuqdo ayaa Abu Bakar u soo galay oo iska fadhiyay nabigu sidiisii kama dhaqaaqin fadhigii hadana Umar baa u soo galay sidiisii buu u fadhiyay hadana Ali baa u soo galay sidiisii buu u fadhiyay Usmaan ibn Affan markuu soo galay nabigu maradii buu hagaajistay markaas nabiga lagu yiri Abu Bakar iyo Umar labaduba sodog bay adiga ku yihiin علينا إن أنت هذو قبا صدق دابا عثمان كسر الرئيس ومرادي مد صار جلب جم محل عثمان وكحش وتال لقويري ميانا كحش ونين بالنبي ولنكها ملائكة إلهي بكحش وتال وعن الأوجه هاي بالنبي ولهذا سيدي أوفر لها حشو دراد العثمان ما صوق عليه وده كان موجود لها ورنكها دليسان ونكها سود نكها سنة حد يقدر لسان عليك علي بقوي مدي وإنما دي قرب سعودان وهم كصوم عتان يا أبا هريرة يا أمير المؤمنين نما كان بقادة كوسود لو عشان بقولون مقالة المدينة أفرتن كن أنين باجوكتي هل لينو هنقابنا قدها هنكجرنا نوقف صحابو كويري وعلي مي ديق إسلام مقالة المدينة قد هذا مايه حدا أنيق يدلان هي دلان حدا أنيق يدلان بقول أنيق النبي عيسى يقولي قميص كإلهي كوجلي يبي دم عدونا إنه كاسران هذا عثمان وقميص كأدس كسرت النبي يقولي أنا جاي أركي مسجد وأقول قيامة هلا كل مسجد بيرتي أبو بكر والنبي قال الباب كي أقرأي يا أبا موسى الأشعري وها بواب كالنبي وها أقرأي وكما وأبو بكر وقصوا إجازة قاضي الجوب نبي قوش يقول عثمان أبو بكر بقى الباب كتاجل سوق الكذب الباب كأوفصح جننا أو بشارة هذا عمر بقى قرأي عمرنا أوفصح إنه سوق له جننا أو بشارة هذا عثمان بقى الباب كتاجل عثمان السوق الكذب وإذا جننا أو بشارة بلا يا أسيب دونتنا وشيك برسول كله مركب النبي يقول بشارة دي مركب الله شيء بلا يلا صعوتا وحول الله المستعان مركب تيبو عثمان حسوسي علي وحو كيري بلا يدا أنا جايني قبسني دونت النبي جاي شيء أنا قلنا وانسك الصبر ياي أنا كلي جاي هلا يدلو هندنتو أنا جو هدان دنتو نينكلا أو مسلمين تكمدو إنك إنك مدا باتنا ده أودي بني سانة
aniga dartay ha u dagaalaminay iska daayay buu yidhi islaamnimadu baaqi ha noqotee la odhan maayo niman buqaada bay dileen oo madiine ku dileen la odhan maayo waxaa lagu sheekaynay haddaan isku kii fasaxa imika muslimiintii daarul khilaafa buu dagaal ka dhaco dowladda islaamku way baaba'daan la odhan buu yidhi marka anu han iska dhinto hay dilaan aniga laakiin dowladdeena islaamku hay noo jirto midnimadeennu ha jirto bal fahmiga saxaabadu ay qabeen eega dhiigoogay ummadda ku badbaadinayeen ummadnimadu inay jirto cusmaan dhiiggiisii buu u huray waayo muxuu dhiigga ugu huri waayey min maalintuu islaamay ilaa la dili doono dhaqaalihiisii oo dhan baa diinta islaamka ku baxayeen islaamnimada markay wax kaa galaan baad u dhex jecloon moogta asxaabu rasuulillaahi sal allahu alay wasalam min kooga faqiirka ilaa kooga qaniga maalqabeenka diintan islaamka iyagu waxbay gashadeen diintu waxbay gashadeen faqataluuhu deedna cusmaan sidaasay ku dileen raggay waliba uu soomanaa maalintii la dilaayay isagoo sooman bay dileen markaasaa raggii u yimidee ugu dambaysay u yimidee wuxuu ku yidhi xaq haddaan nigu leehood anigu amiirkiinni aan ahay aqalladiinna fadhiisa seeftan iska dhiga buuri aniga hay difaacina waayo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wassalaam iyo abibakar iyo cumar baan ku manaamay waxay igu yidhaahdeen cuhmaanoo maanta annagaad nala afuri doontaa marka anigu waan socdaa buuri ma joogay adduunkan meel fiicanna waan marayaa marka aniga dartay ha u dagaalamina buuri aniga magacayga dhiig islaam ha ku daadanina halkiina jooga buuri aqalladiina fadhiista markaad maqashaan cusmaan waa la dilayna inagu shuuraysto amiir muuminiinta u doorta buuri taladu ninkay naga guuya kuwan u noqon mayse dhiiggiisii buu ku badbaadinayaa dadnimada iyo dowladnimada islaamku inay jirto innagana zamankeenna wuxuu le diinta maxaa iga galay buu ku odhan diinta maxaa iga galay dee diinta waa run waxba kaama gelin caqli kaama gelin oo dhaqaale kaama gelin oo wakhti kaama gelin oo dhiig kaama gelin oo dheecaan kaama gelin laakiin qabiilka haddii la caayo waa damqan reerkaad ka dhalatay haddii la caayo oo la taabto dhiig kar baad yeelo dhiig wadnaha ku kici waayo reetolka maxaad ugu damqanaysaa qaadhaankaad ku bixisaa iyaka islaamnimadase waxba kaama gelin iyaka islaamnimada waxbaa ka galay min maalinkuu islaamay cusmaan ilaa maalinkii la dili doono dhaqaalihiisoo dhan diintu ku bixinayay meesha xooggiisii dhaqaalihiisii caqligiisii uu ku baxay inuu naftiisa ku badbaadiyena diyaar buu u yahay ani hay dilaan laakiin midnimadeennu ha jirto ani hay dilaan laakiin magaaladii madiinu dagaal ka dhacayaan la maqlin aniga hay lay dilo han ka taga adduunka laakiin islaamku is haysta han ka tago laan agtooda diintaa qiimo lahayd iyaga cabdiraxmaan bin cawf kadalika hani buu ahaa radia allahu canhu maalqabeen waa ninka cusmaan binu cafaan ka yaabiyey buu ahaa isaguna cusmaan buu ka yaabiyey cusmaan binu cafaan oo amiira ayuu cusmaan odhan jiray waxaan la yaabaa buu ihi tijaaradda cabdiraxmaan bin cawf saad ula yaabtaa lagu yidhi wuxuu idhi muslimiinta madiine ku nool oo dhan baad mooddaa inay la leeyihiin markay maqlaan cabdiraxmaan tijaaraddiisii way kobocdo wuu macaashay way la farxaan hadday maqlaana cabdiraxmaan bin cawf tijaaraddiisii khasaara ku yimiday oo hoosu dhac baa ku yimiday hadday maqlaanna way ka naxaan buu yidhi waxayna uga naxayaan baan nii sheegi buu yidhi dhegaysta cusmaan baa leh magaalada madiine dadka deggan cabdiraxmaan saddex buu u qaybsadaa saddex qaybood qayb uu daymiyaa lacagta wuxuu idhahdaa macaashkana la hadh reesamaalkana iska soo celiya qaybta labaadna wuxuu yidhi aqalladooduu yaqaanaayoo masaariif buu siiyaa biilkuu siiyaa biil oo u tirsan yihiin inta guri ee saboolka qaybta saddexaadna wuxuu yidhi daynka lagu yeesho ee iska dhiibi kari waayaan ayay isaga ula soo noqdaanay yidhahdaan cabdiraxmaan baa noo nool
ابن عوف بان noo jooga annaka cabdiraxmaan bin cawf te u yimaadaan buu ayaa dayn kugu leh hebel hebel waa kan iska siyaana ku nool ninka xoolihiisii magaalada madiina muslimiinta ku nool oo dhan sidaa ula simay mar ali markay maqlaan tijaaradii cabdiraxmaan baa kobocday way la farxaan limaada laana way la leeyihiin hadday maqlaan cabdiraxmaan tijaaradiisii hoos u dhac iyo ganacsigiisii baa hoos u dhacayna way ka naxaan limaada laanahu way la leeyihiin imika tijaarteenu macaynkaaba masaasa waa musliine ya mid miskiin oo dhuuban ayaa arkay nin taajir oo iska yar calool buuran markaasuu yidhi waxa caloosha ka buuxa annaka muu nasiiyaa buu yidhi annagii baa ka gaajoonayna buu yidhi waxay asxaabtu ay hayaan waxay u fahmeen inay muslimiinta u hayaan innakuna waxaan u fahmnay waxaan haysta buu ku leeyahay nin walba anaa iska leh aragtada intay isku jirtaa markaa waxaan haysto anaa iska leh waxaad adu haysatidna anay igu fiican yihiin iyaku waxay lahaayeen waxaad haysato adaa iskale allah kuu barakeeyo waxaan anigu aan hayana walaal adaan kuu hayaa inaad xaqaaga ku ilaaliyo naftayda uma nooli bay lahaayeen iyaku ummaddaan u noolahay haddaan dhimanayo ummaddaan u dhimanayaa innagana maanta waxaan maraynaa inaan idhaahno hee waar anu naftayda maan cid kale ma aqaano dadka kale maxaa iga galay buu ku odhan ku saliya rasuul hadduu yidhaahdo qofku waxaan haysta anaa iska leh halkaa waxa ka dhalata ma taqaanaa xasad baa marka dambe qofka ku dhasha xasad muxuu ku imanayaa markuu yidhahdo waxaan haysta anaa iska leh wixii fiican oo dhan anay igu fiican yihiin marka dambe iman doonto marka hore wuxuu odhanaya waxaan haysto anaa iska leh cidna ilama leh marka dambe waxaa ku dhalan doonta inuu yidhaahdo kan wuxuu haysta hee siduu u haysta anay waxan igu fiican yihiin حسد حسدكنا وصفة قابيل وولالك هابيل وكدلي واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين ولا ليها يعني آدم بعد لبدو ذبا لكن برقا ما دام بن آدم أترمى حواء marka caloosheeda ilmo u galaba labay dhalaysaa laba mataanay dhalaysaa wiil iyo gabadhan isla dhashay labada ku xigto iyo kuna wiil iyo gabadha ayay isweydaan la isku guurinayay baa la yiri bani aadanka tarmaya markaas marka qaabiil waxa la dhalatay gabadh qurux badnayd haabiilna waxa la dhalatay gabadh fool xumayd baa la yiri markay afartoodii barbaareen ee weynaadeen ee kobceen ayuu aadam ku yidhi waa hagaaga haabiilow mataanta qaabiil guurso waa sida curfiga ugu ahaa shareecadoodu marka ay ahayd qaabiilow adiguna mataanta haabiil guurso marka qaabiil baa yidhi may aniga ta ila dhalataa qurux badanoo ta isaga la dhalata way fool xun tahay marka taydan guursan buu yidhi yani wixii fiicanba anay igu fiican yihiin weeyaan marka aadam baa ku yidhi may sharcigeenina kale nooma ogolo may halka sheekada oo maraysa mufasiriinta qaarkood ay qoreen aadam calayhi salaam wuxuu tegay makuu tegey deedna qaabiil iyo haabiil baa isku hadhay labadoodii baa markaa waxay isku bandhigeen ay yidhaahdeen haddaba waayahee sadaqad han la baxno keenna sadaqadda laga aqbalo ha guursada gabadha quruxda badan leh ilaa qaabiil tii haabiil la dhalatay fool xumayd uu iska diiday inuu guursado wuxuu leeyahay anu tan mataanta ila dhalatay quruxda badan leh haabiil u dhisi maayo anaa guursan buu leeyahay labadoodii markaa waxaa loo bandhigoo la yidhi sadaqad la baxa ninna wuxuu ahaa beeruhuu falan jiray oo qaabiil wuxuu ahaa nin fallaaxo bidirka iyo zaraca dhulka ayuu beeran jiray haabiilna wuxuu ahaa baa la yidhi xoolo dhaqato kanna beertiisii wixii ka soo ga'ay buu halkaa ku ururiyey kanna xoolihiisii neefkii ugu qurux badnaayee shishlaa ayuu xaggaa soo dhigay baa la yidhi
marka sadaqadaas in la aqbalana waxa lagu garanayay samada waxa ka imanaysa naartaasi marka sadaqada la aqbalay bay ku dagayso way gubaysaa way baabiinaysaa marka haabiil sadaqadii uu la baxay ayay ku soo degtay baabiisay bale waa neefkii tii qaabiil meesha uu ku ururiyay shaciirkii iyo wixii la cunay zarca ahaa naartii waa ku soo dhici weyday marka qaabiil baa si xanaaqo yiri haabiil oo si aad lagaaga aqbala oo in layga aqbali waaya marka haabiil baa ku yiri walaalkii da ilaahay dadka Allah ka cabsiga loo sadaqada ka aqbala buu deewaan ku dili da aday ku taallaa buu laakiin anigu haddaad adigu gacanta ii soo fidisid anu ka gacantayda ku qaaday meehi buu kaydi deewaa ka dilay marka quraanka ilaahay ku sheegay faqatalahu fa asbaha min an-nadimin waxa bani aadan xaq daran lagu dilo oo dhan ilaa qiyaamaha ina aadan ka hore dhiiga daadiyo dhiigi ugu horeeyay xaq daran ninka ku daadiyo qaabil buha dambi buu isaguna ku leeyahay waxa bani aadan xaq daran dhiig lagu dilay oo dhan dambigana muxuu ka dhashay xasadkuna ma ogolo shariicada islaam xasadku waa maxay haddii la macnayo waxay ka dhigan tahay ilaahu nicmadan hebel aad siisay uma qalmee maxaad u siisay ma ilaahay baad markaa ka aragtay fiican tahay dambiga xasadka lagu leeyahay xasadku marka dambe wuxuu geeyey inuu qaabiil walaalkii uu ku dhagaro lidaalika dadka baayac mushtarka sifada xasadka waa inay ka fogaadaan kii shalay suuqa soo galay baa laga yaabaa inuu ku dhaafo adiga haysura siduu ii dhaafay aniga ilaahay baa u qoray isaga yaa u qoray ilaahay lan rizqu waa munqasim wala qaybiyay adduunyada laguma tartamay diinta lagu tartamaa khaslatan man kana fihi katabahu Allah shakiran sabira wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allah shakiran wala sabira laba khasladood qofka noloshiisa ay kamid tahay ku jirto ilaahay liiska shaakiriinta saabiriinta ayuu ku daraa man nadara ila diinihi man huwa fawqahu faqtada bihi wa man nadara ila dunyah ila man huwa adna minhu ninka markay diin noqoto ka sareeyo eega ee ku dayda adduunyo markay noqotana eega ka hooseeya ee nicmada ilaahay isaga uu siiyo hoos u eega ku shukriya labada khasladood nin kale baa la yiri ilaahay jalla wa ala wuxuu ku daraa shaakiriinta iyo saabiriinta marka in adduunyo la iskaga daydo oo walaalka adduunyo lagula tartamo oo adduunyada lagu xasdo lama ogolo waxa la ogol yahay in qofka diinta lagula tartamo ka diin fiican baa la eega dadna waa lagu daydaa salaada shada waqti waad u tukanaysaa waad baxaysaa laakiin ninka sunnaha ku daraya eego bisha ramadaan baad adigu soomaysaa sunno kale ma soontid ninka shawaalka ku daraya eego ku dayo acmaal baa loo baahan yahay lagu tartamee ashyaa in lagu tartamo maaha mid walba arsaaqada ilaahay intuu qoray buu helayaa in kaloo ziyaada ma helayo kasbiga arsaaqada iskuma xidhno dad baa kaa shaqo badan adiga laakiin kaa dakhli yar nin baa adiga kaa shaqo yar laakiin kaa dakhli badan kuuligu subaxda 6da subaxnimo shaqadu bilaabo ayuu 6da maqribka ka soo dhaadhacaa isagoo naftiisu ay nafba ku jirinba waxa uu qaadanayaa wax yar oo la yiraahdo $15 ama $10 laakiin injineeradu ka warrama maxay shaqeeyaan injineerku inuu shaqeeyo saacad 2 saacadood waliba xafiis qabow ku shaqeyn xafiis qabow oo biyihii u yaaleen oo halkan shaahi u yaalo oo ku sheekaynayo 2-3 saac u shaqeyn waxa laga yaabaa $100,000 inuu qaato maaha qalinka wuxuu ku helay arsaaqada may waa u qornay imsa ka aqoon badan xaafadaha fadhido walwalan dadka inta shaqeynaysa kala haysa iyo inta qalada fadhida cunaysa ma badan ya bal dumarku may shaqeeyaan may hadana way cunaan oo naga qurux badan yihiin ubadku may shaqeeyaan
may haddana way cunaan way naga qurux badan yihiin waayeeladu may shaqeeyaan may haddana way cunaan way cabbaan dadka wahlwaalan may shaqeeyaan may haddana way cunaan way cabbaan dadka jeelasha ku xidhan may shaqeeyaan may haddana way cunaan way cabbaan u fiirso dadka inta shaqaynaysa 10% maaha 9 kalena way cuntaan marka walaalkaaga muslimka haddii ilaahay uu ka dhigay mid adiga kaaga horeeya xagga adduunyada war adduunyada qofka lagula tartamo waxa lagula tartamo qofka aakhirada lagula tartamo في أحد الغزوات كنبيين وبحجر صلى الله عليه وسلم غزوة كمدة أي النبي الصحابة كل رجال يري سفرك ونقول دريا هاي سهيدنا ويكوبنت هاي نم ولا بالمانت وحد الله بحكرت الله بح عمر بن الخطاب مالين تامركم مغلي وحي كسر دعدي بودي مالين أنا أقول عن أبو بكر كجيب رونه markaasaan is idhi wallahi in badan baad Abu Bakar isku dayday inaad khayrka uga badiside ka badi kari weyde maanta aad fursad heshay waad ka badinaysaa maanta oo fursadda Umar uu haysta waa maxay Abu Bakarna waa faqiir waa markii Madiina loo soo hijroodo dhaqaalaba ma haysta Abu Bakar Umarna waa nin maal qabeen oo ganacsi buu leeyahay markaasaa nabigu sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisa nin walba wuxuu bixiyana weydiinaya walibana maanta aad maxaad bixisay yaa rasuulallah intaas oo neef baan keenay anigu ma sha Allah ka qaada waradna maxaad keentay ana intaas oo ariyaan keenay ka qaada waradigu maxaad keentay intaas oo nin baan aniguna saydooda keenaya ka qaada Umar oo socda markaa yimid ragii ka horeeyay Umar wuxuu nabigu weydiinayay waxay la baxeen buu weydiiyay لكن عمر بن الخطاب نبي سؤال عجيب ويدي وحو كيري يا عمر ريركاغا محاد uga timid bali sheeg buu yiri ماذا ابقيت لاهلك صحابه انتي kalo dhan waxa la weydiiyay waxay keeneen la baxayaan laakiin Umar wuxuu nabigu weydiiyay xad maanta Umar oo adigu nasid maxaad reerkaaga uga timid bali sheeg markaasuu yiri intan aan wado إلا أقوم بانوغا إيمدي بودي مثال هان كسو قادن بقول كون هايستا أو كنتم كون كاني كنتم كون الرير كيبو أوغا إيمدي زمن كوداس مصاريف الريرها وحي كوب بحيان بالليلي ويش ما شيء جرين لأن عمر هدو شيء لها كنتم كون الريرها أوغا إيمدي نقصان با عمر هلكا كغا موقن لها نولشيسا waayo waxa la ogaan lahaa ma maasha asxaabu rasuulillaahina ay dhagax caloosha ugu xiranayaan ee ahlu sufiina xabad timira ay ku cuntaynayaan ayuu Umar xoolo inta la reerkiisa ku dhaxaystaa halka nuqsaan ba ka soo gaan lahaa Umar diintiisa lidaalika Umar ma sheegin wuxuu yiri intanaan wado in lamida baan uga imiday buu reerkaygi midaal ahaan 100 kun bay ahayd كنت كنا كان كنت الله هري أبو بكرنا وحى وكان يا ما بجرت وفقير عمر يسقو وحى فيليا إلا إذا هذا محات كنتي ولا هذا كنت كم كان أبو بكر وهذا كنا محات كنتي وحما هيست النبي الله وما أنت دع عمر إلى أبو بكر هذاك بديه ما أنت وهذا فهمت ما نملين لكن سؤال النبي وحى يودع هذا السدن ماذا أبقيت لأهلك يا عمر يا عمر يراها محات وقتي مدي أنت أنا وضع إن لأقبل وجاي مدي أنت مركان لما ويدي شغل لما ورا أنت ما أنا شاقي كرو أنت الرير كان لو ويدي أنت هنا مش شاقي نوح الشهداء يا رسول أنت أنا كان إلا يقوم أنا وجاي مدي أبو بكر السعودي يمدو يدي يا رسول الله أبو بكر أنا الرير كان محاضر قتل مدي الشاق وعلي إلهي رسول كسان وجاي مدي بلا مصاريف بلا وحبة مركان النبي يقول يا عمر أو قصلوا وحكوا يا عمر لبدي الناس صدق أنت لبدي الناس هذا اللي أنت قلنا حيسا أيا درجة دينا جنة قلنا حيسا ورسولك كويلي ومالك عمر يري هديت ولما أنت كذب بيز أبي بكر دمون لا ترتمى يا ويهرب هذا فهمتها ما نقول تنافس
وسارعوا وسابقوا فليتنافس المتنافسون بإلهي سارعوا الدنيا مركا اللي نقلها الله يا إلهي وحوري فامشوا في مناكبها أصعد الدنيا أصعد صعد كواسدا صعد واتغانا ذكرك إلهينا فاسعوا إلى ذكر الله سعي قبال ليلي وصعدك كسر رأي وأودك دقا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تنافس كنا ومحي وترتم لما قفوا الشرط هلك الله دقي وترتميس سو كلا بديان جنة مركا لقى هلايو لما نينو الشرط الله دقي سيده وبرت تمام با إلهي يدي وصبرت تمام با إلهي يدي لكن إلهي حقي سمرك اللي يدينا وحال يدي ففروا إلى الله فرارك هو محي نين اللي بحرينا يكورنا لابا نين وشرط تميسا وشرط هالك الله دقو برت تميسا iyo nin liba xiriiray maska orad ba arkay orad badan inaku dadkeena zamankan baa la yiri fafirru ila dunya adduunyadii baa loo ordaya maanta diin markay noqotona famshu waa u socona waantu kadaay maxaa laga rabaa buu kooran wax salaada ka badan baa jira adduunyada u socaa laga yiri ilaahay xaqiisana waxa laga yiri fafirru firar كفرارك من الأسد سيد اللباح نفط هذا وقبت باد اللهين نار جهنم وقبت باد بالقليل الدوية وقبت بادي فالدوية أكلا بدين مينو آخرة أكلا بدين أينا عمل كون أكسم أكلا بدين أينا إلهي الدواشيس أكلا بدين أينا جنة أكلا بدين أينا فاستبقوا الخيرات خير كوسو كلا بديه با إلهي ليه خير كوسو كلا بديه marka adduunyada waa inaad tiraahdaa war inta ilaahay qadaray baan anigu aan haystaa ma dhaafin karo walaalkayna intan uu haysto ilaahay baa u qadaray waan u haneeyay la hasada illa fi ithnatayn ba nabigu yiri hasadka diinteenu ogoshahay waa laba shay kaliya laba shay un baa qofku oran kara alla ma anigana ilaahay sida iga dhigo laba un baa la kantaabu nabigu yiri waa labadee كما شد الله بهم بيوب النانتهي قفل هاي دقالة وسيي أو دقاله سمال في عقب حينه مركز أركته يقف إلى هاي قرآن وبري أو ساعدها بينك كما القرآن كإسلتها وآخرني هذا أركته لبدا أم بالله أركر الله إلهه ما أنا جانا صدا يقدك تنسده دوس وكلا نقول خير كوب بدل هاي لبدا أم بقف ولا ليكو كما كرا مال قبان مال في عقب حني حولهيس مسجد بكل سيا مدارسته كل سيا مكاتبه كفريا ايتامته وحسينيا مساكينته كنا فقينيا علماءه كو اكراميا خلقي الهي بو اديغيا كا ولا تمني كرا تمني بالله اورنيا اله نعمدا محاد وسيسه كسو قاد ماها ما سيديس اله iga dhigtid weeyaan hadadii anigana xoolo isiin lahayd sidiisoo kala noqon laha oo khayrka ku bixin laha weeyaan iyo nin qaari oo quraan ilaahay oo baray oo saacadaha habeenkii kamid intuu ka ilaahay baryay marka khayrkeena nu tartana diyaar ma unahay insha Allah dhahad وفي ذلك فليتنافس عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه ayaa sankaraadkii markuu qabtay ay ardaydiisii iyo culimadii ay dushiisa ku soo urureen ayuu dhaha kala qaado sida uu eegay limithli hada falyamal al'amilun buu limithli hada maanta oo kale xaaladda anigu aan ku jiro oo kale nin walba way mari doontaaye warninkii u soo amal falayow halka ha u soo shaqaystay buu halka marxaladda maanta anigu aan marayo maalin baad adiguna mari doontaaye arintaad noo shahay khayrka u kala badiya خيرك أكل بديع خيرك أبرتما خيرك عمرة خيرك بيرة خيرك كشغيل خيرك إلهي نسينا ودين الإسلام دين قيمة كوية ليس عليك جبريل عليه السلام قرآن كان لو سودي بي سيد الملائكة إلهي كدقي نبي محمد قرآن كان لقود جيي سيد الأولين والآخرين با إلهي كدقي
ummadda nebi maxamed baa qur-aanka lagu soo dejiyey dusheeda ummadda ummadaha ugu khayr badan baa laga dhigay maka qur-aanka lagu soo dejiyey buqcadaha adduunyada ugu khayr badan baa laga dhigay bil ramadaan buu qur-aanku soo degay bisha bilaha ugu khayr badan baa laga dhigay habeen leylatulqadra qur-aanka la soo naqliyey habeenkaasi wuxuu noqday kun habeen kun bilood habeen ka khayr badan buu noqday habeenkaasi diintaas ilaahayna siiyey sharafta ku yeelaysa ee khalqigii sharafta u wada yeeshay jibriil bay diintu sharaf u yeeshay oo lagu ammaano la yidhi nazala bihi الruuxu wainahu latanziilu rabbi اlcaalamiin nazala bihi الruuxu اlamiin jibriil calayhi الsalaam buu qur-aanku amiin ku sheegay amiin ruuxu lamiin waa jibriil muxuu amiin ku noqday waa waxyiga uu ka soo qaadayay baytulciz ee nebigeenna moxamed oo arlada ugu keenayey sayid almalaa'iku ku noqday nebigeenna qur-aanka lagu soo dejiyey isaga sayid alawaliina walaakhiriin buu noqday makuu qur-aanku ku soo degey buqcadaha adduunyada ugu khayr badan bay noqotay maka salaadda maka lagu tukado waa 100,000 oo sannadood 100,000 oo sannadood waa meeqa sano ma taqaanaa waa 55 sannadood iyo 6 bilood iyo dhowr iyo 20 habeen hal salaadoo maka lagu tukado yaa u dhiganta 55 sannadood iyo 6 bilood iyo 20 habeen 5 salaadood ninka ku tukada ka warrama waa 500 sannadood iyo ziyaado 10 salaadood ninka ku tukada ka warrama 10 salaadood 20 salaadood 5 salaadood waa 250 10kii waa 500 20kii waa 1000 sano iyo dheeraad qof jiray weeyaan maka waxay qadarka iyo qiimaha ku yeelatay waa buqcaddii nebi maxamed uu ku dhashay calayhi salaatu wasalaam waa buqcaddii kacbadu ku taallay waa buqcaddii qur'aanka kariimkeennu ku soo degay ummaddanna ilaahay qur'aan buu siiyey waxay noqotay ummadaha ugu khayr badan bay noqotay habeenkii qur'aanku soo degayna waxaa la yidhi innaa anzalnaahu fii laylatin mubaaraka innaa anzalnaahu fii laylatin qadr laylat اlqadri khayru min alfi shahr diintaas dhulkii qiima u yeeshay maalmihii qiima u yeeshay bishii qiimaha u yeeshay nebigeenna moxamed qadarka u yeeshay jibriil makaanadiisa kor u qaaday haddaan diinta innakuna kor u qaadno dhaqaalaheenna caqligeenna cimrigeenna aan ku bixinno inteen leegba diintaas kor inoo qaada innakana walaalayaal yaanan cimrigeenna adduunye ku wada bixin adduunyadu cali baa lagu yidhi sif lana addunya yaa amiira almu'miniin adduunyada bal noo sifee markaa buu yidhi oo noo tusaale maa asifuhaa maxaan adduunyada iniigu sheegaa buu yidhi u fikiray awaluhaa canaa awalkeeguna waa tacab waa daal wa aakhiruhaa fanaa aakhirkeeguna waa dhammaad xalaaluhaa xisaab xalaalta kugu soo gashana waa lagaa xisaabi wa xaraamuhaa ciqaab teeda xaaraan kugu soo gashana waa ciqaabba ku sugaysa ninka adduunyada hantiile ku noqdana uu fidnoobay buu yidhi ninka ku dhex faqiiroobana uu murugoodaa buu yidhi ninka hantiilaha muu raaxaystaa war ninka maalqabeenka ka warrama isaga ugu walwal badan oo ugu murug badan oo ugu hurdo yar oo ugu raaxo yar oo ugu naxdin badan dadka maalqabeennada intooda badan waxay ka cawdaan ma taqaanaa dhiikar iyo macaan maxaa keenaya ma taqaanaa waa qalbiga waa wadnahan tambaratiirka qalbiga marna uu dhaadhacaa marna uu kacaa marka la yidhahdo waad macaashsana uu farxaa marka la yidhahdo markabkaagii uu degayna uu dhaadhacaa deedna markaasaa dhiiggiisu marna 50 buu gaadhayaa mar 100 buu gaadhayaa mar 200 garaam buu macaankiisu gaadhayaa waa kaca fadhiis dadka ugu caafimaad badan adduunka waa dadka fuqarada dadka ugu caafimaad badan koronaha waagii dhawata dadka ugu cabsi badnaayay haayeen labada qole haayeen laba qolada lacaglayda ee shawladooda gaaska ku jira gaas bay leeyihiin mogta iyo qolada madaxda kuraasada ku fadhida ee inay dhimaneen isku haysata labada qolo ugu cabsi badnayd maskiinka faqiirka ee qadadii doondoonaya ma koronu ka baqi war buu ka baqi ciyaar buu arkay ruwaayad la samaynayo iminkaan u fiirsaday jabuuti waxa afka xidhan oo dhawa dadkii lacagta lahaa lacaglaydii iyo madaxdii waa laba qolo isku haysataba inay dhimanaynba faqiirka miyaa
waxaa dadka maalqabeennada madaxda ilaahay ku salliday cabsiya faqiirka ilaahay waa ka qaada waxaas laakiin isaguna xag kalu ka murugoono shoomeernimo maxaa tirahdaan musaarad baa madaxa wareerisay isagana taasuu madaxa la xoqanaya xaggee tagtaa ciyaalka halkeed geysaa فإن شاء الله هذا إن دينتنا معا كشغينا ديار منها إن شاء الله